subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysa washington. waa 15 bisha abril ee sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda ayaa waxaa ka mid ah dufcad cusub oo ka mid noqonaysa ciidanka kumaandooska soomaaliya ee danab oo tababar loogu xiray xerada ballidoog. dufcaddan waa dufcaddii tobnaad. danab waxay taasi muujinaysaa in muddadii la aasaasay ciidanka kumaandooska soomaaliyeed oo dib loo aasaasay oo iska kaashadeen dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka sannaddii 2013 inay tahay dufcaddii 13aad ee halkan ka qalin jabisa. wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda kacsan ee u dhexaysa israa'iil iyo iiraan iyo sidoo kale ma ogtaa siraade cashaqiina siraaye sahalka aynu moodne inasaaqay berigi hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. maraykanka ayaa axaddii muujiyey doorka uu ku leeyahay ka gacansiinta israa'iil inay ka hortagto weerarka hawada iiraan iyadoo madaxweyne joe biden uu isugu yeeray hogaamiyaasha kooxda 7 waddan si markaasi ay uga hortagaan in si weyn ay colaadda ugu fido gobolka iyo weliba inay isku duwaan canaan caalami ah oo iiraana. maraykanka ayaa israa'iil gacan ka siiyey in ay soo ridaan daraasiyiin diyaarado iyo gantaallo ay iiraan ku soo riday sabtidii taasoo ahayd markii ugu horreysay oo ay iiraan weerar militari oo toosa ay ku soo qaado israa'iil iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo. israa'iil ayaa waxay sheegtay in laga hortegay 99% oo hubka iiraan iyadoo aanay wax khasaare ah geysanin. saraakiil maraykana ayaa sheegay in iyadoo heerka kahortagga weerarka iiraan uu ahaa mid aad u sarreeyey ujeeddada iiraan ay ahayd in ay wax burburiso oo ay sababto dhaawacyo haddii aan lagu guulaysan kahortaggaasi uu ahaan lahaa mid aan la xakamayn karin oo ku baaha bariga dhexe. saraakiil maraykana ayaa sheegay in biden uu u sheegay ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu isagoo isku dayaya inuu xakameeyo xiisadda in washington aysan ka qayb qaadan doonin weerar kasta oo ka dhana iiraan waxaana uu madaxweynuhu aada ugu caddeeyey netanyahu oo uu ku yidhi waa inaan si taxadir leh oo istaraatiijiyadeed uga fikiro khataraha sii kordhaya. sanad ayaa maanta waxa ay buuxsantay markii uu bilowday dagaalka ka socda dalkaasi suudaan kaasi oo u dhexeeya militariga iyo xoogagga hubaysan ee rsf. xalay oo kale bisha abril 14 ee sanadkii 2023 aan idhaahde ayuu qarxay dagaalkaasi sokeeye ee dhiiga badani uu ku daatay tan iyo markaasna 100 qof ayaa ku dhintay 100 kun oo kalena waa ay ku barakaceen. dagaalka suudaan ayaa keenay abaar aad u ba'an iyada oo qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka ee caalamiga iyo kuwa maxalligaba ay ka digeen macluul ay suurtagal tahay in dad aad u tiro badan ay u dhiman doonaan macluushaasi bilaha soo socda. isuduwaha xafiiska arrimaha bini'aadminimada qaramada midoobay justin brady ayaa sheegay in bilaha fooda nagu soo haya ay dhici karayso in dalkaasi suudaan ay macluul iyo gaajo ay ugu dhintaan 10 ama 100 kun oo qof haddii aysan bulshada caalamka si deg deg ahi aanay ugu gurman dalka suudaan. warkiina waa dhagataas.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. dufcad cusub oo ka mid ah ciidanka kumaandooska ee danab ee soomaaliya islamarkaasina uu taageero maraykanka ayaa waxaa loo xiray tababar. munaasabadaasi oo lagu qabtay belidogle oo ay ka qayb galeen wasiirka difaaca ee soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga ayaa waxaa askartaasi loogu sheegay inay u diyaargaroobaan ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixin arrintaas ku saabsan wuxuu nooga soo diray muqdisho. dufcadan cusub ee ka mid noqonaya ciidamada kumaandooska ee xoogga dalka soomaaliya ayaa waxaa layliya maraykanka waxaana tababarkooda uu ka socday xerada xasan tuure ee ku taalla belidoogle. munaasabad loo qabtay ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda difaaca soomaaliya, taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo saraakiil ka mid a saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya. askartan cusub ee tababarku u soo dhammaaday ayaa waxay soo bandhigeen wixii la baray, waxaana la qorsheynayaa inay qayb ka noqdaan dadaalada lagu xuraynayo dhulka al-shabaab ay maamulaan ee ka maqan gacanta dowladda soomaaliya. guud ahaan ciidamada cusub ee ka mid noqonaya danab ayaa tiradooda lagu sheegay inay gaarayso 335 askari, kuwaasi oo muddo baranaya cashiro la xiriira dagaalka, hubka iyo howlgallada gaarka ah. taliyaha danab gaashaanle cayduruus maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyey waajibaadka askartan cusub horyaalla ee muhiimka ah inay u diyaargaroobaan. wasiir iyo taliye, wiilashan iyo gabdhahan waxay ku yimaadeen shuruudihii aad noo soo gudbiseen, ogolaanshihiinna, waana nasiib waxaa maanta u yeeshay 355 halkan hortiina fadhisa ayaa nasiib u yeeshay inay ku guulaystaan oo xafladan ka qalinjabiyaan. dufcaddan waa dufcaddii 10aad. danab waxay taasi muujinaysaa in muddadii la aasaasay ciidanka xoogga ciidanka kumaandooska soomaaliyeed oo dib loo aasaasay oo iska kaashadeen dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka sannaddii 2013 inay tahay dufcaddii 13aad ee halkan ka qalinjabisa. aynaysan ahayn dufcadda u dambaysay, laakiin ay socon doonaan tababarada joogtada ah iyagoo ku xigi doona tababaradii gaarka ahaa iyo tababaradii horumareed ee intaan ka sii dheerka ahaa. taliyaha ciidamada militariga soomaaliya ibraahim sheekh muxuudiin ayaa u sheegay askartan cusub inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhana al-shabaab, kaasi oo hadda si weyn u sugayaan bulshada soomaaliyeed in ciidamadan ay qayb ka noqdaan. tababar runtii aan arki karo inaad ka faa'iidaysateen. waxaan fiirsanaynay bandhigii camaladii aad ku barateen ama tababaradii aad ku qaadateen ayaan idinka fiirsanaynay. runtii waa midaan u riyaaqno, aan filaynana inay anfici doonto dalka iyo dadka iyo diintaba ay anfici doonto. waxaan leeyahay danab xaqiiqdu waxay tahay dalkan waxay u ahayd waayadii ciidanka xoogga dalka soomaaliya, danab waxay u ahayd tilmaan. haddana waxaan rajaynaynaa inay sidaa noqoto. ta ugu muhiimsanna waa disabiliinka. idinkana waxaan rajaynaynaa inaad halkaas ka wadaan oo ciidanka danab iyo aasaaskiisa iyo tababarkiisa dalka gudihiisa inay noqoto mid wax ka bedesha oo ciidamada kale mataqaanaa ay ku daydaan. xaqiiqadu waxa waaye xilli xasaasiyaad ku soo aadeen dalka. waad ogtihiin waxaa ka socda khawaarij ayaa dalkii mataqaanaa xooggiisaba la xoreeye. ciddii loogu talagalay ama ku talagalku uu yahay inay dalka ka xoreeyaanna waa idinka. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa madasha qalinjabinta ciidamadan cusub ka sheegay in soomaaliya ay ku jirta halgan u dhigma kii xorriyadoonka, kaas oo ay muhiim tahay in ciidamadan iyo guud ahaan kuwa qalabka sida ee soomaaliyeed ay si weyn ugu sii diyaargaroobaan. halganka xiga ee dalkani ku jiro waa halganka maanta lagu jiro. waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin wakhtigaad nooshihiin oo iyo xaaladda aad ku jirtiin iyo maaragta duruufaha aad dhex taagan tihiin iyo inay mararka qaarkood ahmiyadda wakhtigan uu leeyahay inaynan siinin ama aynan xasuusaninaa laga yaabaa. halganka hadda lagu jiro wuxuu la mid yahay ama ka qiimo badan yahay halgamadii la soo maray. askartan cusub ayaa waxa uu tababarkan u xirmay
xilli soomaaliya ay dhexda uga jirtay dagaal xooggan oo kala dhexeeya al-shabaab. madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu horey u ballan qaaday wakhtiga uu talada jooga in dagaalkaasi uu guulo weyn ka gaari doono. waxaase la eegayaa waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan ciidamada askartan hadda tababarka uu soo xurmay ee ka tirsan danab. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho. iiraan ayaa habeen hore boqolaal gantaal waxa ay ku weerartay israa'iil. weerarkaasi uu ahaa kii ugu horreeyey oo ay iiraan si toos ah ay ugu beegsato israa'iil. haddaba jawaabta israa'iil laga filayo iyo sida uu u ekaan doono mustaqbalka gobolka bariga dhexe ayaa jamaal axmed cusmaan waxa uu ka waraystay maxamed biixi oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe. duqaymahaas ay iiraan ku qaaday markii ugu horreysay taariikhda israa'iil waxay u muuqataa inay sii kicisay xaalad markii horeba taagnayd marka la eego guud ahaan gobolka bariga dhexe iyo xiisadii u dambeysay ee ka taagnayd marinka khaza. arrimahani marka la isu geegeeyo waa natiijo ka dhalatay dhibaatooyin in badan heshiis la-aanta carabta iyo israa'iil gaar ahaan marka la eego qadiyadda reer falastiin ilaa iyo iminka loo helin xal ayaan u malaynayaa inay u tahay udub dhaxaad. marka arrimahani waa arrimo uun xaaladda laga yaabo inay sii kiciyaan, laakiin markii horeba xaalad taagnayd oo khatarteeda leh ayay ahayd. iminkana waxaad moodaa uun markaas inay sii qaraxday. natiijadaas maxay haytay muddada dheer soo taagnayd ayay ka dhalatay. laakiin markii ugu dambeeyey dhalatay duqayntii ay israa'iil ay duqaysay qunsuliyadii ay ku lahayd iiraan magaalada dimashq ee dalka syria. waayahay hadda wararka waxay sheegayaan in golaha wasiirada dagaalka ee israel aysan go-aan rasmi ka soo saarin waxa laga yeelayo oo aysan sida warbaahinta qaar ay tabinayso tallaabada ay qaadi doonaan. marka sidee bay xaaladdu noqon kartaa? maxaase dhinaca israel laga filan karaa? marka la eego jamaalow xaaladda iminka taagan iyo maxay haytay duqaynta wixii ka dhashay, horta waxaad moodaa inay noqon karto haddii aan arrintaa xal loo helin saameyn ballaadhan oo guud ahaan gobolka bariga dhexe. arrintanna waxaa lugaha kula jira oo qayb weyn oo door weyn ka ciyaaraya waa dalka maraykanka. waxaad moodaa marka maraykanku inuu taagan yahay haad laba dhinac u kala baydhaya. dhinacna uu doonayo in israa'iil la taageero waxay u baahato hub iyo agab, iyo xataa hadday kalifto inuu maraykankuba dagaalka soo galo. dhinaca kalena uu ka taxadarayo maamulka Biden in dagaalku uu sii fido, waayo kuma jirto danaha maraykanku ee xilligan gaar ahaan maamulka Biden oo loog yahay in dhowr bilood oo quraata doorashooyinkii inay uga harsan yihiin hadda kuma jiraan. marka waxaad moodaa dhinacna inay ka taageersan yihiin israa'iil, dhinacna inuu maraykanku ka taxadarayo israa'iilna ku cadaadinayo inay colaadda sii hurto oo maxay hayto ay halkaa dhaafto. xogaha la helayo waxaa kaloo sheegayaan in berigii u dambeysayba laga warhayay in maxay tahay weerarka ay iiraan qaadayso, maraykankuna uu si dhow ula socday, israa'iilna lagu wargelinayay. iminkana maraykanku uu culays saarayo israa'iil inaanay ka jawaabin, sababtoo ah israa'iil umaanay baranin maxay haytay duulimaad noocaas oo kale. marka waxaa laga yaabaa netanyahu oo doonaya malaha meeluu kaga nafiso colaadda gobolka gaar ahaan khaza iyo culaysyada isaga saaran iyo israa'iil gudaheeda maxay haytay dhibaatada ka taagan ee xagga siyaasadda ah, doonaya malaha inuu dagaalku sii daba dheeraado. laga yaaba inuu isagu doonayo inay sidaa u dhacdo, laakiin maamulka Biden wuu ka taxadarayaa inta suuragalka ah, sababta oo ah gobolkana dani maraykanka dhaqaalihiisa iyo isa socodka saliidda iyo maxay tahay tijaaradana dani uma jirto. doorashada soo socota ee maamulka Biden la filayana dani uma jirto. marka maraykanku waxaad moodaa inuu culays ku saarayo israa'iil inaanay wax jawaaba ama maxay haytay falcelina inaanay ka samaynin arrintaa. waxaa dadka qaar ay isweydiinayaan ama ay leeyihiinba arrintan sidaad ka dhawaajisay waxaa laga yaabaa in lala sii socday weerarada iyo jawaabta ay iiraan bixin karaysay kadib qunsuliyadii dimashq weerarka loogu geystay, in
weerarada tirada badan ee droniska ay kusoo qaadeen haddana khasaaraha inta xajmiga weerarka uu la ekaa uusan gaadhsiisanayn khasaaraha, taasina ay u dhigmayso in uun ay iiraan sidoo kale isaga khafiifinayso culeys gudaha kasoo fuuli karaya ku aadan in weerarada israel kusoo qaadayso aysan jawaab ka bixinaynin, laakiin hadda ay yihiin kuwo jawaab bixiyey. khasaaraha haba yaraatee meeshuu doona ha gaadhsiisnaadee sidaasna israel ay ku degto. oo bal ka waran arrintaa iyada ah. waa runta waxbaa ka jira jamaalo, marka la eego culays baa saaraa iiraan gudaheeda marka la eego gudaha wadanka. dhowr jeero hore israel maxay tay ka geysatay dhibaatooyin ana u geysatay ciidamadeeda iyo dad khubaro ah oo xagga nuclearka ah. marka culays soo taraya baa jiray oo inay ka jawaabtaa. marka iiraan lafteedu laba kaadh bay ciyaaraysa sida u muuqata. mid waa maasajay u diraysay gudaha wadanka oo ay doonaysay inay muujiso iyo dunida inteeda kale inay aargoosatay. maasajka labaadna wuxuu ahaa in aanay doonaynin inay dhibaatadu sii kororto oo ay faraha ka baxdo, waayo iiraan lafteeda dani iguma jirto inay colaadana sii hurto ama dagaalkana uu sii ballaadho. marka labadaa fariimood ee isbarbar socda ayaa keenaya. ta kale labaad waxaa keenayay sidaynu horeba u sheegnay in laga sii warhayay, in loo sii diyaar garoobay. sida ay wararku ay xooguhu sheegayaanna gantaalaha ugu badan ee lasoo riday waxaa lagu soo riday meel ka baxsan hawada israa'iil. ciidamada maraykanka ee gobolka iyagu maxay tahay teelteelka u jooga suuriya iyo urdun iyo khaliijka iyo xataa britain iyo faransiisku qayb bay ka ahaayeen sida ay israa'iil sheegtay. marka waxa yareeyey iiraan lafteedu maanay doonayn inay kusii talax tagto, waayo waxay doonaysay inay maasiijadan gudaha iyo dibaddaba u dirto, laakiin maanay doonayn wax weyn oo dharbaaxa ah oo israa'iilna ka cadhaysiyo dabadeedna colaadu halkaa kasii fito, waayo iiraanna dan uguma jirto, maraykanna dan uguma jirto. laakiin waxaa laga yaabaa malaha ninka dagaalka imika doonaya inuu netanyahu uu yahay siyaasadiisa gudaha si uu malaha u maareeyo. marka dhinacyadu dhammi way ka digtoon yihiin. marka iiraan imika waxaad moodaa inay culaysku hadda ka degay, maraykanka laftiisuna uu ka degay. kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamed biixi oo isagu ka faalooda arrimaha bariga dhexe, waxaana u warramayey jamaal axmed cusyaa. waxaa sanad walba kusoo noqnoqonayay magaalada beledweyne fatahaada kaga imaanaysay dhanka webiga shabeelle. haddaba maxaa arrintaasi sabab u ah? waxaa warbixintan ku eegaya waryaheena v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane. dadka magaalada ayaa ku talagala labada xilli roobaad midkood guga ama deerta marka uu roob badani ka da-o dalka ethoobiya in webiga shabeelle uu ku fatahayo magaalada. si magaalada looga difaaco fatahaada joogtada noqotay malaayiin dollar ayaa lagu bixiyey mashaariic biyo xireen, laakiin taa webiga kama hor istaagin in magaalada uu ku fataho marka la gaaro xilli roobaadka. cabdulaahi warsame cabdi waxa uu la shaqeynayay hay-adaha qaramada midoobay ilaa 20 sano ee lasoo dhaafay. waxa uu sharaxayaa sababta lagu guuleysan waayey in magaalada beledweyne laga joojiyo webiga ku fataha mar walba. mashaariicda inta badan horta waxay bilowdeen 2018 marka dhammaantood ilaa maanta waa socdaan, laakiin dhammaantood nasiib darro waa lagu guuldaraystay. sababta loogu guuldaraystay yani waxaan kusoo koobi karnaa dhowr arrimood. kow, isku xir la-aan xumo ama waxyaalaha loo yaqaano lack of coordination. midda labaad waxaan dhihi karnaa naqshad la-aan, design iyo wax la tixraaco inta badan kambaniyada iyo dadka ka shaqaynaya ma haystaan. midda saddexaad ugu weyn waxaan dhihi karnaa la xisaabtan xumo. kow, waxaa arkaysaa mashruucyadaas waxaa ka shaqaynaya dad aan ahayn waxyaalaha la yidhaha waajibaadkooda aysan ahayn. hay-ado, wasaaraddii beeraha ka shaqaysay, wasaaraddii biyaha ka shaqaysay, macdanta waxaa ka shaqaysay, fatahaadan kambaniye ay maalgeliyeen ama contract siiyeen, wasaaraddii maaliyadda, qorsheynta. waa garan kartaa waxaas hay-ad maandeed kulligood uma wada lahaan. meel oo maaragtay oo coordinationka laga xukumana ma aysan jirin. annaga xoogaalaan u nahay, waxay iska ahayd arrin iska hidihoobe ah, naqshad oo isku xirayso oo intaasoo maaragtay muxuu ahaa shaqaa markii isla wada qabto biyihii waa celis ama fatahaadii waa yaraanayaan dhihi karta ma lahan. runtii waxyaalaha la dhisaayana wax isku mid a ma ahayn. nin buuruu dhisay, nin maaragtay dhagxaan wuxuu ku shubay silig, gambiana luqadda ajnabi lagu yidhaahdaa. nin wuxuu dhisay derbi shamiita
oo adag ninba waxbuu iska sameeyey wax isku xiran maaha. maamulka magaalada beledweyne ayaa sheegay in guulo la taaban karo laga gaaray isku dayga sidii magaalada biyaha looga xiri lahaa, laakiin ay jirto saameyn ka dhalatay isbeddelka cimilada, sida uu sheegay cabdulaahi saalax sheekh, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada beledweyne. wallaahi saameynta ka dhalatay saameyn aada u baaxad sarraysay ahayd. elelino roobabkii da-ay oo maaragtay aad xadigooda aada u sarreeyey. sida la socotaanba waxaa roobab aada ay xadigooda u sarreeyaan ay ka da-een wadanka dariska aan nahay etoobiya. degmooyinka webiga ku taysan oo dhan ay saameeyeen. sida la socotaanba waxay saameeyeen degmada jalalaqsi, degmada buulaburte, xitaa intay ka gudbeen ay laamiga ka degeen oo ilaa maaragtay walweyn ay saameyntaas ay ka geysteen. marka shaqadii oo lagu guda jirayna roobabkii iyo maaragtay climate changigii iyo wixii ay dhaceen iyo roobabka elelino. marka waxaan dhihi karnaa shaqadii loo baahnaa maaragtay waa ay qabteen NGO-yada iyo hay-adaha ka taageera dowladda shaqooyinkaasoo kale oo biyo xireenada ah. shaqadii iyadoo socotayna biyihii iyo roobabkiiba ay ku soo aadeen. marka taas ayaana maaragtay dhalisay iyo roobabkii aan filaynay inay ka bateen biyihii intaan filaynay. haddaba ma jirtaa saameyn mustaqbalka dhow ay ku yeelan karto taageerada hay-adaha gargaarka mashaariicda aan waxtarka yeelan ee lacagaha badan lagu bixiyey? waa kan mar kale cabdulaahi warsame cabdi. saameynta ay yeelan doonto mashaariicdan oo lagu feelgaroobay waxaa ka mid ah inaan ku weyn doono deymo inaan qaadano, inaan ku weyn doono deeqbixiyaasha inay kusii socdaan barkanin sana walbaba storia la sameynaya saan waay kanaalka gaabnaa intaa la sameynaya lacag looga soo qaadaya. laakiin maalin waxaa imaan doonto niyahow arrin soconaysa ma ahan in reer hiiraan deeq ku waayaan, qaranka uu ku waayay deen. marka shuruudaha deen bixinta waxaa waaye in mashaariicda guuldareysta aysan badan. marka anigu waxaan soo jeedin lahaa aqoon-yahanada soomaaliya, injineerada, dhaqaalyahanada, arrinta fatahaadaha mashaariicda faraha badan hiiraan in lagu sameeyo dib u eegis, iskaga yimaado debate, macnaha dood laga sameeyo, la ogaado waxa keenay oo wax fara badan ay ka faa'iidaysan karaan soomaaliya oo dhan mashaariicdooda. duruus badan ayaa ku jirta runtii. sanadkii hore ilaa 2 jeer ayaa magaalada fatahaad looga baxay. barakaca dadka kasoko waxaa jira dhaqaale burbur ku dhacay dadka maadaama awoodda biyaha ay dhulka dhigeen dhismayaal ku yaala inta badan agaarka buunda koowaad. xuseen xasan dhaqane, VOA, beledweyne. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. waxaad weli nagala socotaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. markana waa ma og tahay israada iyo xasan aadan samatar. ma ogtahay siraade cashaqiina siraaye sahalka aynu moodne ina saaqay berigi inu soo kordhaayo sigiyo dabayliyo soo kiciyay cerya inu soo kordhaayo sigiyo dabayliyo soo kiciyay ceryaan oon xalay saqdii dhexe hurdaadii ka salaalo soo toose dhowr jeer oon xalay saqdii dhexe hurdaadii ka salaalo soo toose dhowr jeer safad male jacaylkuye wan sidaaye ilaa qabo soo dhowowo ilaa qabo oo haygu sii dayn
safaad male jacaylkuye wan sidaaye ilaa qabo soo dhowo ilaa qabo oo haygu sii dayn inta waan ku sugayo nafta waan sasabay ma ogtahay siraadey 3 saniyo dheeraad inta waan ku sugayo nafta waan sasabay berribaysi uu noqon saadambay wax kula qaban saadaasha geliye berribaysi uu noqon saadambay wax kula qaban saadaasha geliye sidaan fili kalgacaylkuna adii kuma salgaarino wabaasahashanaysa sidaan fili kalgacaylkuna adii kuma salgaarino wabaasahashanaysa safaad male jacaylkuye wan sidaaye ilaa qabo soo dhowo ilaa qabo oo haygu sii dayn safaad male jacaylkuye wan sidaaye ilaa qabo soo dhowo ilaa qabo oo haygu sii dayn idaacaddeena saaka iyo caalamkana heestaasi ayaa ugu dambeysay moogtahay siraadii uu qaadaya xasan aadan samatan intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garabay daanduray oo idin leh ma ogtahay siraadey soomaaliyo idil uma sidatid quruxdee habla kula